وياي هاي ما فرنا سيف بدي سيف على هاي سيف إن هذا هو كاميرا اوكي هاي وان صوت ايضا هذا أمر سيف ولا أنا كاميرا كون فرح جنا لكن رب ما له يسوع هاي وكاش يا كاميرا سوما ها ويا وكاش وينولي الله ما شاء الله يا ربي إلهي أودي سوي كتها ويلك وكاش وينولي هاي هاي ويلك وكاش وحا حرين أبيه يا أحمد دي الله أكبر الله أكبر أما كل أنا أبيه بسبحي ويرها اللي يحلو أنا waxaan jeclaa lahaa isla asaga cirka dhulka meelay sugaya sug ha dhameeyo daahir ku dhameeyo ku socdaar marka arinkaas wuxuu ag yaala aabihii iyo Axmed Deebi ag yaala dalkaas uu xiran yahay kullu taba ma taqaanaa inta information ku hayo waxay Axmed Deebi wuxuu ku dacweeyay inuu lacag ka haday haye kadibna uu ku dilayaa waxaas uu ku xiran yahay dalkaas uu ku xiran yahay aabihiina waa la og yahay ma taqaanaa aabihiina wuxuu raday hooyada cunugu baanta sida wax loo weydiiyay nidaamka soo marto haye hadda akhbaarta waa kaasa wixii intaa ka dambeeya aniga waxaan inaan loo baahnayn والله دايرو إن حدادن أدوغو بنانك سو ساري أنو وحبا كما قالو وحان كقبس حدان كقبسان كرو واهوران بكا قبسالا oday jees-jeesay oo hooyanimo igu daa hooyada camal iga soo qaad xaaska kale iga soo qaad gabadhaado kale iga soo oday ay horta meel aan ka baryi lahay oo kale oo iga dhiman ma jirto waxaan sugay waan ilaahay quraankiisa inaan ku bariyaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu igu cadgooyo wax kale oo haystana ma lahan reerkii uu iga soo horjeediyay oo kulli wixii reerihii dhamaayo dhan walbay u baxaan oo iga soo horjeesteen kuwa ila dhashay barow qaatay waxaan ku dhahay waalideenkii dadkii oo dhan qof walba maxaan ku dhahay wuxuu yiri maba la weydii karo Axmed Deebi soo istaag marka hadda in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu la istaaga meehe si kale wax uga qaadan kar ma leh daahiro adigu iga soo qaado Soomaalinimo umadnimo bini'aadanimo dareen dartiis haddaba intaan baada keentay odaga meel iga saar wallahi kama maxaa qaban kartaa haddaan ku sii informationka meeshuu ku xiran yahay taliyaha xabsigaas heesta ma taqaanaa telefonkaad kala xiriirayso taliyahaas haddaan wixii ku sii maxaa qaban kartaa ii sheeg والله waxba qabo ma karo saa waxaan ku raadsado qarashana ma haysto mana tagi karo sharci ma haysto waa rag hadana macnaha mar walba wixii xataa hanjabaad iyo qaab daro igu hadlaayo xataa isaaq asaga la dhashay wax wanaag igu hadlaayo ma lahan waxa wallahi aan ka qabsan karo ma lahan marka intaan dhibaatadaydan la dhiman lahaa maalintan ku helay maxaan ku dhahay murugtu way iga yaraatay macnaha markastaba saacadii waan sii taagana haddana waxyar waxaan dareemay in qof garab la'aan ahay laakiin awal ma dareensan ruux kaligiis la hilmaamay oo adduunyada dhan ka saahida waxba aan ahayn isla ahay marka codsigaygu waa inaad gacanta banaanka iga soo saarto waa haday xaqiiqta inuu nool yahay safaaradda ana ma caamilo waa haye asaga baasaboor Soomaaliya ma haysaa wiilka dhalashadiisa caadi staalkan ku dhalay warqadii ahaydna waan haystaa warqada oo Mozambique ku joogo eediga ay u jarayna waan haystaa sharcigiisa waa kuu soo diray daahir bere horaan kuu soo diray wiilka kii Soomaaliga bisa ka dhiman kii safaaradda ay ku dacwo lahayd Soomaalimis oo Soomaali inuu Soomaaliya ah kaasna waan haystaa waan isku magac waxa dhan magacii wata daayida xitaa magaciigiisu ugu qoran yahay wixii soo dhan teeda kale daahir wuu ka soo fakaday wiilku laakiin dabcan gaariga dambe kala degeen reerkani waalan gaarigay kala degeen ma ahe wuu ka soo fakaday oo hadda halis markii hore wuu ka soo baxay wadooyinka dhexe ku qabsadeen ma isla guriga kama xiranin أنا حلو حكوا إيدي سا information كوا هايو إنه وحكا حضي وحدد هاد maxaan ku dhahay inuu qof bini aadan oo iska nabto oo wuxuu doono ku sameeyo mushaarkiisa hooyadii saacida daahir oo maceebay noqotaa mid kale adiga asaga wada hadasheen inuu gaaga adii la soo baxatay ka soo baxatay meesha
ما كسو بحما دهين لكن waxaa iri reerkii shala aad iga raacday Saciid Ukaashow adoo intaan ka yar maxaan ku dhahay Soomaaliya complain iyo dhibaato ugu hay aaba lama noolaan kara ay tiri oon ka soo waday in hadan hadalkooda mar labaad yeesho Ukaashow dhabar jaba igu tahay waxaad ii qabartan male anigana dan kaameli markaas uu hooyo adigan ku maqanahay si kastaba shala marka Soomaaliga soo wadan hooyo aabad itaan kugu iri ilaa hadan waan ku taaganahay hooyo adana ku maqanahay ee ii ducay in kaartaad way ugu dhacday dib aan ay haystee marka ugama jawaaban wali macnaha inta kale waa isla qosli jirna laakiin markaan xil walba wax ku ballan la gaaro aniga halii horaan qaadan waay qofkan garashada la aabaha ah aniga teeda kale ninkan waa horo anigoo yar la igu daranin maxaan ku dhahay oo xitaa dan khalad ka galay yaraan ku haleeyahay anoo weyn maxaan ku dhahay aqli kama sameyn reer kala samaystay iyaala kale oo maxaan kala duwan aan leeyahay macnaha odagaan maba u banaan way oo maanta iga cadaadiyo saa waxba uma qabto hadda haduu xitaa isoo cishto waxba qaban karo maamu weynaan ahay saddex jir ma ihi adiga ayaa la hadashay Saciid Ukaash oo ku dhahday hooyo soo bax ka soo dhuumo may wallahi ma ku dhihin hal wiil oo kala tashtay wiila jiro oo kala tashto hadaba baraha bulshada soo dhigay uu yiri wuxuu ugu dhahay meesha walaal dhiba ay ugu haysto markaas mad ka soo baxday maxaad ku qabanay markaan ku dhahay wuxuu ugu dhaw yiri kama bixi karo ehelna waa nahna dhibaatayna ku jira saarabta okay waan ka soo safraa waa ka soo tagaa sidii uu ku soo baxay marka waliba inuu gaariga soo raacay uu bas way saarnayn yarkaas bisa laga helay yarkii markii uu helay odaga inuu baraha bulshada soo dhigana odagiyaa raadsada hadana meel walbo macnaha information ku siraad Saciid Sheekh wax ka dhanaan heli kartaa odagu talaabo walba talaabta ku qaaday teeda kale waa nin wax haysta waa nin isku filan waa nin macnaha labada dhinacba Soomaaliya ka shaqaysan karo labada dhinacba isku jira laakiin aniga awoodaas oo dhan ma lihi oo dhanna ma taageersanay dhanna kuma jiro ruux Ilaahay abuurtay nolosheedii ciyaalkeeda biska ku dhex meeranahay adiga iyo wiilkaagu Saciid Ukaash adiga dhowr jeer isku xanaaqday صح oo telefoonka xitaa ay gaartay inaad telefoon ku dhageysato صح markasta wiilkaaga waxaa ku caadinaysay inuusan aabihii u janjeerin oo adigu oo aabihii mataqaanaa markasta arrinta aabihii waa kala hadlaysay issuega markasta waxaad kala hadlaysay issue ku saabsan Axmed Deyd kala hadlaysay dawbaanta codka waa heli karnaa okay taas xaraan waay wali wax odaga Axmed Deyd ku ugu baahan oo Axmed Deyd xaqiisa iskalaama hadal macnaha maruu Axmed Deyd hooyo qof fiican aad u malaysaa dhib ugu haya markaas aan ku Axmed Deyd waa walaalkiisa muxuu lacagtaadii mushaarkaaga u faragashanaya meeqo ku siiya hooyo hadii lagu shaqeysto meel kasta ka shaqeysan kartaa imow xoogaaga u baahanahay aad ku tiri wal qofkan haduu yiri ama gabadha aniga aan dhalayo asaga ku hooyada aaba ay tirido waa laga yaabaa laakiin maya wallahi suguma tagin taas oo lillahi ta'ala suguma tagin markaan kala hadlo wuxuu yiri Axmed Deyd laftirkiisa lambarkiisa isii ay hooyo lacagtu waa la ii diiday markuu yiri waxaan ku yiri Axmed Deyd lambarkiisa isii markaas uu hooyo Axmed Deyd qof fiican oo malaysaa qof fiican ma ahan markaas waxaan ku yiri feeri shalaytu hadalkooda 500 ay nagu shaqeeyeen intay ku dheen soo ma raacina haddana deerba ku dubtaan iga dhamow waxna kaamaraba kuumana baahan ilmihi kala ugu filan idaa markaas uu hooyo adaan ku maqana laakiin Axmed Deyd nin fiican ma lambarkiisa isii marka waxaan ku yiri marka dambe haduu waxba ku siin ruu sheegaysid mad walaalkiis isaaq u sheegtid hooyo waan u sheegaa isbuucaan isku imaanayaan bis waan maxaa ku dhahay markaasaan go'aan ka gaaray ka bacdi seerabta hayr inaad xal maxaa ku ah markaasuu yiri bal hooyo kooda hore inaan gabadhan guursaday aan soo arka way marka waxaan hal mar waxaan ku darsaday waxaan hooyo Soomaaliya inta ugu tagi lahayd gabadha keenso meesha aad joogto laftirkeeda keenso markasta oo xilliga aan aniga asaga balano oo waxaan hooyo xilligan ku soo basreen insha Allah tii hore la iin kiray midaan dambe waxa saddexdan bil dambe waxaan shaqeyn hooyo inaan maxaan ku dhameerada kugu camira isku daya mar walba markuu dhaho waxaan dhahay okay aad igu camirtid maxmed inta ka dhaxaysa oo dhaxda markuu soo galo waa isla qosleena ciyaalku la qoslaa wuu la subcinaa waa isla sheekaysan wax dhiba ma qabno haddana markii balanti la gaaro aan mar walba dhijir markuu ugu soo qaado hooyo bishanaysan dhicin hadda isla qoslayna isbuucaan oo dhawaal isla qosla bishi xilliga dhamaato oo macnaha marka haddana balantii kale hooyaan ka galay hooyo balantii haddana waa isagna markuu yiraahdo haddana meeshaas saga qaylina 2 daqiiqo la isku qaylay ama xilli ama telefoonka ku jara danayga iska qabsado iska taga kabacdi haddana maalmo ka bacdi marka guriga imaan ciyaalka u sheekeena waa sheekeysana sidii la isla wada qoslaa laakiin mar walba dagaalku wuxuu bilaabana markuu yiraahdo hooyo hadda waa la ii diiday marka dambe waxay hooyo beena sheegay inay caawisan martide awalna waxaaga wax kuma soo qabsan waligayna kaaga ma baahan waana mahadsan tahay maxaan ku dhahay sidaad cadowga u noolow ilaahay dibna kuma tuso marka saas iska dhaha haddana
admacna ugu dambeyntan dabo dhibo is haystay yiri maxay dhibkaagana shaqo ku mali shala soo mar raaca 500 aan ugu shaqeeyaa ma dhina aday ku jirtaa baxaan yiri markaas uu hooyo dhibaan ku jira markaas war hana ku dubtaan haday rabaan markaas intaas ku dhahay nolosheeda Axmeday hal shay xumaanana ma dhihin markii laga reebo markaan dambe wiilka maxaad ka tiri kartaa sharcigeyga waa kan maxaa qaadi kartaa macnaha waxyaabaan ixtiraam ahayn oo xitaa cunugeyga uma ogole inuu saas ku dhaho oo Axmeday laftirkiisa xumaantaas ku dhaho uma ogole qof kale inuu dulmiyana diyaar uma ihi saa tarbiyada waxaan quraanka oo soo baray oo ugu dadaalahay oo anshaxa iyo asluubta qofka weyn marla inuu ka afciliyaan wiilkeyga diyaar uma ihi horna diyaar uma hay rabbi ayaga markaatiya haddana diyaar uma ihi aabiisna nolosheeda kalama hadleen aabaha waxba hasiin ama hadalka u xume nolosheeda wallahi kalama hadleen abiis ma sax oo baan abiis sabal aqle asaga laakiin sababta hadee hooyo iyo wiilkeeda uu kala dhex jira ma fahmin sababtu noo cadaadinayna ma fahmin just aan wiilkeyga noloshiisa iyo inuu asaga meeshuu doono igu noolaadaan farxadeeda waa intaas uun wax kaloon adduunyada ka rabaay ma lahan ilmahaygan kale ilmihii qorkii yara 9 jirka ooynaay markuu ooyo iska calool xumooda dhibaatada anaga mid yar hadii waxa ii jiro ciyaalkayga 4 jira hooyo Rukash u dhintay Rukash intuu jooga macnaha dadkii su'aalihii soo wacaayo anigii ooynaaya markay arkaan ciyaalkii xitaa maskaxdooda inay wax yeelaysaa aan nafsad ahaanteeda future kuga baqa ciyaalkii yaraan haysto marka hadda sababta keeni karto in hooyo iyo cunug ayada ay dhashay shalana aniga hooyada aan ku soo dul korsaday in maanta li cadaadiyo ama waa dhintay waa nool yahay bohola lagu riday madare eesh maalinba mid la ii keeno daahir waxay ila tahay inaan hooyo astaahilin laakiin hadduu dabiciisu intaas oo uga dhigay aniga high bloodna waan qabaa sokorna waan qabaa cholesterol maxaa ku dhahayna waan qabaa ama saliidda jirka sida aad u taqaano intaasoo dhan asagoo markaas marka qaar dadku soo wuxuu leeyahay hadda ayad intee jirtaa macnaha waxaad moodaa hadaan istaal gal inuu ku raaxaysanays waan adeero uu yahay oo ehelaan nahnay oo aniga adeero uu yahay ninka laftirkiisa aan wiilkayga ciyaalka labada gabadha wiilka u dhalay hadda ma fahmi karo sababta aaba Soomaaliyeed intaasoo dhibaato ah iyo wiil Axmeday oo ciyaal laho maxaa ku dhahay nin asagana reera leh inuu asagana hooyo in laga oysiyo ay raaxay farxad ka dhigtaan aniga ma sheegi karo sababta kaliftay iyo meeshay ka socoto waliba aragadu soo dhaw haye daahiro aad baa ku salaama adiga asxaabtaan maamadana waa salaama maama aad ku salaama daahiro niyo wadanka anaga joogno ninka laga hadlayo anigu adeer ugu aadan yahay waxa la rabaa wuxuu in ay bayaan cad leeyihiin Axmeday nin la kasi waayo maan waa nin ganacsata waa nin xoolo haysto waa nin dukaamada ma wiilkii ana la hadlay intuu kiiskan TikTok imaan yartu subax la dhooso Afrika jooga intay soo wacayno arrinkaas jira maamad hadii xogteeda loo gudbiyo ma qaanay ninkii aan wacay waxaan ku dhahnay oo wuxuu jiraan wuxuu ii sheegay wiilka in abtigii oo dhalay wiil abtigii oo dhalay dhibka intee u marsiin karaa ugu dhahay ni horta wadankaanu cid wax ku sameyn karto bataata ma jirto wadamada Afrika wadanka ugu sharciga adag waa qaf inta imaado qaf kale oo shaqeeyo kuma xad gudbi karo marka laga soo tago Allahu a'lam waxa maqan waa qaf bini aadana ma ahan lacag ma ahan wax lamida ma ahan maamadu xaqay u leedahay haddii qofku hadal xun oo dhahay wiilkeeda si Allah iyo geed gaaban say u fuuli karto inay maamad u fuusho taa waa taa hooyo raalaama marka koowaad ku leeyahay uma qalantid wiilkina haddii nool yahay waa la helaa ma la xiriiray wadanka community uu leeyahay wadanka sharci uu leeyahay Axmeday marka laga tago nimanka odayaasha ah ee asaga qaraabada u xigo cirra iyo mala hadasho ma is waraysateen oo ma dhahday wiilkaas anigu sifadaas iga maqnooyo عرّا هرت خير الله كسيو عرّا وأنيجا اسمه نقانو وحال الله اللي أضجا أديك سنة حتى وذات كجالية دمشق جوجا أنا أبوكر اللي هذا والله وعد مرك قفل بمرك هذا كسور هذا وإيجا عمسه قفل بهو أردا والديار أنا صعد قف كيو أنا جحسن وعمسر ما مصلي النبي بدي صلى الله عليه وسلم ما مسألة السنة بدي معناها أنيجا مركز تبع ويلكاج وعد انتدي مر والبقلب جي كسي جرته ورما جيفته وحنقول ربي هنقول عرت صلاة ربي يقوله صلاة أن دكانها أنت حبيتنا والله كلا فهم واي دارسن ميسانه والله وكلا فهم واي صلاة أن دكانها هير عن صحي وايان جار مرة حصل سعيد شغل محارب كوسارك ربي يا شلك كوسيستي ما أنت ناسك كحيسته حدنا مركز أنت هذا الذي إساق ما هذا شيء إساق والله هذا ما كور هذينا إساق أفبوح وحويري ما أنت هذا صحته هاي ربي يا مركاتيجا ما كور هذينا وان كشك يدور كل معنا قفا عيري وعمركو وعيوري مرة هذينو ما مضاس أبتجي كوقف في سو أبتجي وجو صفري مرة هذين إنه راد كيس نصاق لنا مرة بو ما لنا الدعوة يضادنا ومرة هذينو إساقيري هلاس مركو يري أو أنيجو معنا إن قد كجري وصل أجينو يرك كلا إيده جيسي أنيجو وان كبحي قد كوات كيسون هذا لا أنت زي كسي ديراتك أو ضلضلاي دين وان كبحي وان
waa maxaa yidhi isaaqow waan soo socdaa Mozambique imaanaya deetan waxaan rabaa inaan wiilkayga ila raadiyo adigana waa walaalka inaan is wada garab qabsano markaas war wuxuu uga yiri diyaaru ma inaan kula raadshe وعيسلها ماشي كم سول كموزمبيق هكول راتشانو أحمد يهرت هبين كاسا يقول دنبيسي أو والله كبعد ذاتك وان بلوغي وكدعي وحاسو دلدلا معناها الصومالي لماذا إن انتاسو حماني اي كلا قشو ويل هو يدي سكورستي محارسطة نشان مع الموسيقى جري أبيسا انكو كلا تغني هو يدا ينكو سو كورستي ورميالو البان وقد عيالكي انيغا هو يدا ابتياش ولا راي هو يدا دشا قوشي دي قرغو دي كسو كوريه انيغا انتاسان معناها اما انو قرصدا اما ان usoo قدامي meeyo ama aan darbi ka dhacay biilka walaalayga iyo soo diraan aan rabbi intaan taar dhigan hooyaday u dhigi jiray waxaan ka hadla maahan taas laakiin waxay gaarsiisay xamaasada heerkan gaartay ee hooyo iyo wiilkeeda dambi ka dhaxeeya jirin wax macnaha sababta in la kala tiiriye banaanka la kala mariyo waxa kalifaan qaadan laahay mid kala ku dheer waxay dheen hooyo anigu waqti maayo shaqaan ku jira arrimahaas ka dhaaf daayro wiilkii meesha ku xirayay macluumaadkiisa anaga qaare see wiil oo aabihiisa la xiray yiri see loo soo day karay fahamsi bas war waxaas uma shaqeeyaan aabihiisa ii xare wax la dhaho Mozambique kama shaqeyso ninka waa lagu sameyn karaa in maaragtay askarta lacag la soo siiyo qofkan ii haaya oo saldhig bob ahayn oo saldhig maaragtay iska tuulo ku yaala in lagu xiro way dhici kartaa laakiin saldhig international qof la geeyay 2 maalin kuma jirto maxkamadda la saaraa Axmed wuxuu leeyahay lacag igala baxsanaya wiilka lacag igala baxsado uu leeyahay lacag hadduu ku yeesho lacag hadduu ku yeeshto waxyar habar yar waxyar sug haba waxyar please hal mar aan ka hormar please inkastoo emotional raalli hal iga noqdo intiinaan dhageysanaysa iyo inta meesha ka mas'uulkaba walaalayaal hadduu lacag ku heystana bulshada Soomaaliyeed oo daahir cali soo horeeyay iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ku nooshay aan ugu baahanahay Axmeday wixiisa inay xaq iyo xaq darada rabbiya dabkeeda kulaalkeeda toosi doono marka bulshada Soomaalida ka rabaa wax alla hadduu 1 milyan sheegtana inay gacanta iga saaraan adinka codsi labaad aan idinka codsanaa hooyo ii sugaal mar waxa sorta gaari may daahirow ninka hadii lacag loo haysto ee lacag ay tahay ninka dad oo ka dhasho abgaal oo ka dhashay abgaal Mozambique waa buuxaa Allah abgaal ha igu sheegin dab Allah ku shubee qabiil maxamed shakhsiyada xune ii soo dir numberkaaga anaga ka wada hadlayna iska dhaaf namada fasax may lambarkaaga waa hayaaba anaa kala soo hadlaayo daahirow kiiska soo wixii lacag anaga waddankaana nin iyo galgal badan ma jiro